صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنذيو فرض كأوغا فقراء ذا سكذا سي قرآنك كريم أهمية وكولة هي نلشنا الدنيا هي مدنا آخرة هي سيدا قفك قرآنك صاحب لنغته هي قرآنك ستوسة ورحيرته تلاوة وتطبيقا أقرن كعمل فل قرآنك حريرته الله يالته إنه هرمر قارسينا يا الدنيا ديسي هي آخرة ديسي قفك مرور بابا نلشيسو waxay horumarkiisu ay ku xiran tahay nolosha horumarkeedu hadba inta uu jirsado quraanka ilaahay inta xiriirkaagu uu la eg yahay ayaa noloshaaduna ay horumartaa quraanka ilaahay mar walbaba inta aad ka fogaato ayaad ka fogaatay noloshaadii adduunyo iyo midaadii aakhiraba inta mar walbaba quraanka ilaahay subxaanahu wa tacaala akhrintiisa aad badiso jeclaantiisa aad badiso la saaxiibidiisa aad badiso ku xirnaashada quraanka aad badiso ay ku xiran tahay mar walbaba in adduunyadaaduna ay toosto aakhiradaaduna ay toosto quraanka ilaahay walaalayaal waxaa ammaan ugu filan innahu kalaamu llahi tacaala faqad waa hadalkii ilaahay intaas ammaan ugu filan وصفة من صفات الله تعالى وتلمان إلهي تلمامه سكمده وإريدي إلهي وكهد لي سبحانه وتعالى وفرتينتي إلهي سبحانه وتعالى إنسانية أردن بني آدم كردن فرتينتي إلهي وصوت دريو وفرتينتي إلهي سبحانه وتعالى وتلق لي قف والباهين وكهر مره qof walibaahi in adduunyadiisuna ay ku toosto aakhiradiisuna ay ku toosto qur-aanka ilaahay waa almucjizatu alkhaalida waa mucjizada jinni iyo insi cajsi gelisay isagoo kale inay la yimaadaan ama qofku uu alifo ama isagoo kale uu sameeyo jinni iyo insi mucjizada ay ka caajiseen inay sameeyaan قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا إلهي وحليه سبحانه وتعالى إنس يجن هذي اسكو ضيان قرآن كانوا كلائن السمايان أما وحلم إذا أي لي ماذا ما الله يمنكران حتى هذه دمانتود أي استاغيران ودمانتود أي اسكو عن سيان قرآن كانوا كلائن السمايان قرآنك إلهي ولا ليال سبحانه وتعالى عد الله وافجيه هي عد الله جعليسيه ضدو دن معها قفك قرآنك إلهي اللي وحريه قفك إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وكحريه وإلهي بالود وقدقيه قرآنك إنه لازمه ووسنه ينكرن ومالنتي وسنجوغي كرن إلا جزء من لبجس وكمدين وكآخر معها qof noloshiisii iyo balwadiisii iyo dhiiggiisa uu la shaqaynayo quraanka ilaahay qofka noocaas ah dadoo dhan ma ahan adduunyadan dhalaalkeeda iyo wasakdeeda qof ilaahay uu jecel yahay xabiibkiisana ilaahay uu siiyaa dhalaalka adduunyada qof ilaahay uu necb yahay ahlu naarana adduunyada ilaahay uu siiyaa laakiin quraanka jacaylkiisa iyo ku camal falkiisa ilaahay ma siiyo ilaa man yuhibbu إلا قف إلهي جعل معه واصطفاه على البرية هذا مخلوق دن إلهي أكدرته إلهي وحليه سبحانه وتعالى أرك أسقوا تلمامي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلهي وحليه القرآن كان كتاب كان وحن نحل سينا الذين اصطفينا من عبادنا كوي الضومدنا أن كدورني ولو فيرسو الضومدنا كوي أن كدورني ayaan kitaabkan siinaa oo dhaxal uga dhignaa oo jeclaanay ku camal falay
camal falkiisa iyo tadbiiqiisa iyo tawjiihaadkiisa iyo astaamaha uu siinayo raacay idan marka ogow qur'aanka haddii aad jeclaatid haddii aadan joogi karin maalintii ama habeenkii inaad qayb raatib ka dhigato mooye haddaad dareemayso noloshaada inay wax kaa maqan yihiin haddaadan qur-aanka akhrin waxaad ogaataa inaad tahay addoon ilaahay uu jeclaaday waxaad tahay inaad ogaato addoon noloshiisii adduunyana ku guulaystay aakhirana guul ay u dambayn doonto aakhirana guul ay u dambayn doonto liannahu ilaaha wuxuu leeyahay aladiina istafaynaa min cibaadina kuwii addoommadeenna aan ka doorannay ayaan kitaabkan dhaxal uga dhignaa oon kitaabkan siinaa uri ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa jiray xadiis imaamu nasaa'i iyo ibnu maajah labadooduba ay sunankooda ku wariyeen ee nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ku tilmaamay qofka qur'aanka saaxiibka ka dhigta ee qur'aanka akhrintiisa joogteeya ee camalfalkiisa joogteeya inuu yahay ahlullaahi wa khaasatuh dadka ilaahay khawaasta u ah oo ilaahay si gaara uu u jecel yahay oo si gaara arrimahooda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u tawallinayo oo si gaara ilaahay uu ugu naxariisanayo subxaanahu wa tacaala nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu yidhi inna lilaahi ahliina min annaas inna lilaahi ahliina min annaas ilaahay dadka ahaluu ku leeyahay ahal ayuu ilaahay dadka dhexdooda ku leeyahay qaaluu man hum yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo ahalka ilaahay dadka uu ku leeyahay maxay yihiin ayaa saxaabadii weydiiyeen nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ahlu lqur'aan hum ahlullaahi wa khaasatuh dadka ahlulqur'aanka ah waa ahalkii ilaahay waa khawaastii ilaahay dadka xulka ah oo ilaahay uu ka doortay bini aadamka uu ka doortay haddaad doonayso inaad noqoto ahalkii ilaahay haddaad doonayso inaad noqoto khawaasta ilaahay sida dadka gaarka ilaahay u ah oo si gaara ilaahay il naxariisla uu ugu fiirinayo oo si gaara ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimahooda uu u tawallinayo saaxiib la noqo qur-aanka kariimka ah saaxiib la noqo qur-aanka kariimka ah waa ahlullaahi wa khaasatuh qofka haddii jeermiska qalbiga waanu ka hadalnay khudbadii hore usbuucii hore ayaan uga hadalnay jeermiska qalbiga hadduu daboolan yahay oo dembi yacni jeermiska aanu sheegayno waa dembi qofka dembigiisu hadduu bato qalbigiisii yaa daboolmay qalbigiisu hadduu daboolmona noloshiisii wuxuu noqonaa qof gadaal gadaal u soconaya oo kale noloshiisii yaa cagsi noqonaysa xayaata mucaakasuu ku noolaan wixii wanaagsanaana waa la xumaanaya wixii xumaana way la wanaagsanaanaya cagsiguu ku noolaana cibaadadii culays iyo dhib iyo rafaad ayuu kala kulmaa xagga munkarka iyo malaayacniga markuu aadana wuxuu dareemayaa inshiraaxu lqalbi farxad iyo qalbigiisu inuu raynrayn inuu ku jiruu dareemayo waa qofka noloshiisa mucaakasa ay ku dhacday oo dembigiisu uu batay oo qalbigii uu madoobaaday qofka noocaasi qur-aankii marka xiriir lama yeelan karo liannahu jaraasiimta qalbiga iyo jeermiska qalbiga ka buuxaa u diidaya inuu qur-aankii uu xiriir toosa la yeesho inuu saaxiib ka dhigto qur-aanka qur-aanka qof caafimaad qaba oo qalbigiisu uu nadiif yahay ayaa qur-aanka saaxiib ka dhigta oo qur-aanka akhriya jeclaada maalin walba iyo habeen walba qur-aanka laasimay sidaas awgeed si qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu u jeclaanno si dhiiggeenna iyo balwaddeenna qur-aanku uu u noqdo aanu badinno toobadkeenka iyo istikfaarta si qalbigu uu nadiif u noqdo waxa noo diidaya oo naga hor taagan qur-aankii inaanu laasimno joogtayno si waxaas ay nooga baaba'aan oo nolosheennu ay noqoto nolol toosan nolosheennu ay isku beddesho xadiiska ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku warinayay ayaa wuxuu tilmaamayay saxaabiga la yidhaaho abidar ayaa nabiga u yimid salى اllahu wasalam wabaaraka calayh saxaabigaas nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu ku yidhi yaa rasuula اllaahi awsini rasuulka ilaahayow dardaaran ee anfaca isii dardaaran ee anfaca isii nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu ku yidhi
عليك بتقوى الله عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله أبي ذر إلهي عبسديس بلوت كدغو إلهي عبسديس لازم محايا للنرشة إساقا مدح واه الله كعبسي ونرشة دان مدح يديو مدح هادي لغا جرو من نولان كرت الله كعبسي قفكو هدو وايانا نولولي مجرت نولولي مجرت فإنه رأس الأمر كله نرشة دان مدح يديو الله كعبسي أبي ذر وحيري زدني يا رسول الله دردارنك وحي قدر نبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وحيري عليك بتلاوة كتاب الله حكى دردارمي إن جوكتي سود لازمته كتابك إلهي آخرنتيس ودردارنك النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه صحابك أبي ذر ليراه وكلا دردارمي ودردارنك نبي الدوري صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أبي ذر هي أمدي سودان الدوري النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء نبي صلى الله عليه وسلم وحير كتابك إلهي هدي آخرينتي سأجوكتيسو نور كون نقرة نور قبرك هدي أدقشو عريرك قبرك هي مقدك قبرك هي كليلك قبرك أي اللغة بعد القرآن كآخرينتي سأ الله بديه فإنه نور لك والنور يفتين ما أنت أهل وسنجرين كو أنفعي قرابك كو أنفعي سيسنجرين هنتي أدسكو فراني سيسنجرين تبرنا يسوع دماتي الباب والبانا وكاحرين هي دولك هوستيس لوغو آسي waxa ku anfacaya waxa ugu qaalisan kitaabka Ilaahay akhrintiisa aad badin jirtay waa ku soo gurmanaya kitaabka Ilaahay maalinta aad tabar yartahay oo dacfigaagu xaaladii ugu dambeysay uu taagan yahay quraanku uu ku soo gurmanahay uu ku shafeecahay nuuru ku noqon ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أبي ذر وحكيري قرآنك النور كون نغن وذخر لك في السماء سمدنا كيد كويا له كيد كويا له وأكون كاجي أيو كوجرا آيات والبعض آخرسه ووح كون كاجي كوجرا وكيد كوا وأضب حسن يسوع ما أنت دبك وجرا كلية معها قرآنك مركي لدينتو كلية إن الله بحسن يوم معها وحو الصحاء hab nololeedkaaga adduunyo aakhiro ka sokow habka nolosha aad u nooshahay adduunyada lambaradeedu ku toosiya oo uu ku saxaa wuxuu hagaajiyaa caafimaadkaagu hagaajiyaa wuxuu kobciyaa caqligaaga iyo dareenkaaga maskaxeed ayuu goojooyin iyo dhibco uu quraanku uu ku daraa wuxuu hagaajiyaa xiriirka ummadda iyo bulshada aad u leedahay wuxuu wax ka bedelaa magaca ummadda dhexdeeda aad ku leedahay wuxuu sameeyaa quraanku mar walbaba inaad iska faraxsan tahay oo mashaakilka adduunyadu wax weyn aysan saameyn maskaxdaada ku yeelanin ma aha quraanku qabriga markaad gasho iyo qiyaamaha markii la gaaro kaliya gurmadkiisu ma aha adduunyadaadu wax badan uu ka saxaa quraanku lambarada adduunyadu ku saxaa ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaa waraxmatun lilmu'miniin walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara إلهي وحوله سبحانه وتعالى قرآنك وحن أسود جني ما هو شفاء عافمات نقول ولذلك وحذرك قفك مركي لقى سود داله وإنت أصور اختار لقيه وحل إله بل قرآن كينا قرآن كأنك آخرينه إلهي سبحانه وتعالى وعافية وحذرك إنسان جنك إنه كبقى يا قرآنك وقفك حتى جنك وهيو oo shayaadiintu ay hayaan markii quraanka lagu akhriyo waxaad arkaysaa jinku inuu cabaadayo mashaakilku la dagaalama quraanku mashaakilka adduunyo iyo kuwa aakhiraba waa xal wuxuu yahay furo ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay quraanku inuu magacaaga iyo sharaftaada adduunyo uu hagaajinayo sharaftaada adduunyo inuu hagaajinayo ayaa ilaahi tilmaamay subxaanahu wa tacaala لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون إلهي وحيري وحنودين سود الجنة كتاب شرفتي إنه يكون جرت فيه ذكركم أفلا تعقلون ذكركم حل رجلا أي شرفكم ومزيتكم قرآن كشرفتي إنه يكون جرت الدنيا أنا شرفت هذا مقعاق وهجاجية آخرتنا إلهي سبحانه وتعالى رده سير رحمة ديسة
ayaa ilaahay kuugu deeqaa subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka ah wuxuu xal u yahay mashaakilka qalbiga qofku hadduu kurbo iyo mashaakil iyo isla hadal ay soo wajahaan uu badiyo kitaabka ilaahay uu kala furo oo u akhriyo mashaakilkii waxaad arki hadduu qofku yaqiin u leeyahay isagoo sii degaya mashaakilkii oo marba qaybo ay sii daawoobaysaad arka waa meesha ilaahay uu leeyahay aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri اllaah alaa bidikri اllaahi tadma'inu اlquluub ilaahay wuxuu leeyahay dikriga ilaahay ayaa qalbigu ku dega wa acdamu dikri huwa alqur'aan dikriga ilaahayna waxaa ugu weyn qur-aanka ugu weyn dikriga ilaahay oo qalbigu ku degaya idan marka mashaakilka adduunyada qofku hadduusan qur'aanka xiriir joogta uusan la lahayn waxaa ku badanaya mashaakilka adduunyada oo uusan xal u heli karin ilaa qur'aanka inuu ku daaweeyo mooye idan marka alqur'aan yucaalij almashaakil alinsaaniya fii shataa maraafiq alxayaat alruuxiya والبدنية والعقلية والاقتصادية mashaakilkaaga dhaqaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu kobciyaa irsaaqadda ayaa ilaahay kuugu furaa oo uu kuugu waasiciyaa qur-aanka kariimka ah qur-aanka kariimka ah qofka akhriskiisa joogteeya risqigiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyaa risqi uusan ku kibrin oo uusan ku qooqin oo noloshiisa ku filan ayaa ilaahay siiyaa subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay qofka qur-aanka ka sii jeesta oo qur-aanka aan saaxiib la noqonin inuu mashaakil la kulmayo adduun iyo aakhire labadaba nolol xun inuu ku noolaanayo waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waman acrada can dikri cabdullahi bni cabaas wuxuu ku fasiray can dikrii bimacnaa can اlqur'aan qofkii qur'aanka ka sii jeesta faina lahu maciishatan danka nolol ciriirihuu leeyahy noloshaa ciriiri looga dhigo mahmaa malyan dheer kasta uu yahay qalbigiiyaa ciriiri ah malyan dheerka naftiisii lacagtii dhexdeedii ayuu ku dhex cadaaban yahay lacagta dhexdeeduu ku dhex cadaaban yahay lacagta dhexdeeduu ciriiri iyo wuxuu dareemahayaa nolol xumo lacagtii dhexdeedu wuxuu dareemahayaa walwal noloshiisii uu ka dhex dareemaya baynamaa qofka qur-aanka ilaahay waa cajiib qur-aanka ilaahay akhriskiisa badi qaybna raatib ka samayso oo markaa raatibkaasoo munaasib u ah nolol maalmeedkaaga iyo shaqadaada munaasib u ah hal jus laba jus afar jus inta awooddaada ah laakiin laasim waxaa ah in raatib aad ka samaysato qur-aanka ilaahay oo aadan joojinaynin ilaa qabri aad ka gashato taasi marka maxay yacni kuu suurto gelin inaad qur-aankii la yeelatay xiriir joogto ah waxaad ka wanaagsan tahay ka nolol wanaagsan tahay qofka qur-aanka xiise u akhriya oo xiiseeya qur-aanka war maantay laba jus aan ka akhriyo 3 maalmood 4 maalmood waa maqan yahay ma joogo qur-aankii waa ka maqan yahay war maanta haddana waa igu soo dhacay qur-aankii aan akhriyo taasi saaxiibtinimo maaha qur-aankii saaxiib lama noqon laakiin waxaad noqotay qof xiisoola ah nabiga salى اllahu waslama wbaaraka caleyh wuxuu yidhi iqra'u اlqur'aan waa xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayey iqra'u اlqur'aan fainahu yaأtii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih nabiga salى اllahu waslama wbaaraka caleyh wuxuu yidhi qur'aankan aqriya liannahu maalinta qiyaamaha ah qur'aanku wuu yimaadaa isagoo asxaabtiisii u shafeecay asuu kuu soo gurmanaya maalinta qiyaamaha kurbada iyo walwalka iyo walaacu jiro waa kuu shafeecay bal wuxuu tilmaamay xadiiskii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinayey inuu qur'aanku ilaahay kaala hadlayo imaamu tirmidi wuxuu sunankiisa ku wariyey nabigu salى اllahu waslama wbaaraka calayh inuu yidhi yaأti اlqur'aan shafiican lisaaxibih qur'aankaa imanaya isagoo saaxiibkii u shafeecay fayaquulu yaa rabbi xallih qur-aanku wuxuu leeyahay
ilaahow saaxiibkaygan ilaazimi jiray oo i akhrin jiray oo igu camal fali jiray ilaahu qurxi qurux iyo bilad sharaf uu dadka uga duwan yahay ilaahu sii fayalbasu taaja alkaraama markaasuu qofku wuxuu labistaa oo la siiyaa taaj ayaa madaxa loo siraa magaciisa la yidhahdo taajkii karaamada oo lagu karaamaynayo waa bilad sharaf uu uga duwan yahay dadweynaha meesha isugu yimid maalinta qiyaamaha ah fayaquulu yaa rabbi zidhu qur-aanku marka wuxuu leeyahay rabbiyo wax kale u kordhi oo ugu siyaadi fayalbasu taaja alxulla markaasaa waxaa la siin isku joog taaj isku joog ah ayaa la siin fayaquulu yaa rabbi irda canhu fayardaa canhu rabbuh qur-aanku wuxuu leeyahay rabbiyo waad qurxisiye ilaahu haddana ka raalli noqo waxaan kaa codsan saaxiibkan adduunyada saaxiibka igula ahaan jiray ilaahu waxaan kaa codsan raalli inaad ka noqoto fayardaa canhu rabbuh ilaahay waa aqbalaa shafaacadii iyo ergadii qur-aanka ilaahay raalliyuu ka noqdaa raalliyuu ka noqdaa qofka ula fiirso lidaalika marka qur-aanku aakhiradaadana sidaasuu u toosiyaa adduunyadaadana sidaasuu u toosiyaa sheekhan la yidhaaho ibnu kahiir raximahu اllahu tacaala kitaabkiisan tafsiirka ah markuu fasirayey suuraةu الnamli biqowlihi tacaala aman yujiibu اlmudara إida dacaah wayakshifu الsuu wayajcalukum khulafaaءa alأrض ailaahu maca allah qaliila ma tadakaruun aayaddaa markuu fasirayey ibnu kahiir qisuu sameeyey ibnu kahiir qiso wuxuu wariyey ibnu kahiir uu leeyahay ninaa qur-aanka aad u aqriyi jiray nin markuu aayaddaa fasirayo wuxuu yidhi ninaa qur-aanka aad u aqrin jiray marka ninku nin miskiinuu iska ahaa baqalluu lahaan jiray baqallo ayuu dadka ka kiraysan jiray baqallaha laga kiraysan jiray maalin maalmaha ka mida ninaa wuxuu isaga soo dhigay nin baqasha ka kiraysanaya ilaa waa nin tuuga oo dilaa ah oo dhiigyo caba ninkanuu rabaa inuu fogeeyo oo hantidiisana qaato meel cidlana uu ku soo dilo markaasuu yidhi waxaan doonahayaa baqasha inaad iga kiraysato baqasha adigayna ku taqaana adigaa wadi karee baqasha ii wad oo aan gadaal ka raaco waayahay yidhi ninkan miskiinka ah waa la khiyaani waxba ma oga baqashii isla raaceen magaaladii uu ka saaray magaaladii markuu ka saaray ayuu wuxuu yidhi meesha aan u soconno dariiqana gaabane dariiqanna marsii dariiqii miskiinkii maray oo baqashii uu marsiiyey sidii noo waday waxaan ku tagnay uu yidhi meel uus iyo dhiig ay yaallaan waa uus bini aadam uus bini aadam iyo dhiig bini aadam waa nin dilaay ah oo intaasoo qof meesha ku soo dilay waan argagaxay yuu yidhi markii meeshii aan arkay waxa meesha yaalla waan argagaxay yuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi adigana waan ku dilayaa lacagtaadana waan qaadan baqashana waan kaa qaadan markaasaan waxaan yidhi ilaahan kugu dhaariyaa nafta keliya ii badbaadi oo hantidayda dhan iyo baqasha waxa dhan qaado laakiin nafta uun ii daa markaasuu wuxuu yidhi albaql wamaaluka lii wamaa uriidu ilaa nafsaka baqasha iyo maalka haba ka hadlintaa kuwaas anigaa iskale uu yidhi mar horaan go-aansaday waxaan u socdo waa nafta maalka anigaaba iskale iyo baqasha taa mar horaan go-aansaday waa nafta waxaan u socdo markaasaan waxaan ku idhi yidhi waayahay fursad isiiyo laba ragco intaan tukado bis ka bacdi idil fursad labadaa ragco igu sii waayuu yidhi dedeji labada ragco dedeji waan xirtay yuu yidhi salaaddii ibnu kahiir marka wuxuu leeyahay raximah اllahu tacaala ninkii salaaddii markaan xirtay yuu yidhi faاrtaja calaya اlqur'aan falam atadakkar minhu xarfan waaxida qur-aankii oo dhanaa layga daboolo yidhi hal xaraf waan xasuusan waaye waan jareeyo waa cabsan waxaan islahay uu yidhi dhowr aayadoodood isaga xijaabto ninkaan ku dhex akri salaaddii hal aayad xataa waan xasuusan waayo hal xaraf cabsi ayaa timid uu yidhi meel walba waan iska taagnaayu isagiina wuxuu leey u yidhi yaa cabdallaahi icjal boobsii dedeji salaadda hal xaraf ayaa iisoo xaadiri waayo yidhi qur-aan ka mid cabsi markii dambe ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu igu soo ridi uu yidhi aayaddan
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله آيادaasan akhriyey markaan faatixadii akhriyey kabacdi ayaan aayadda akhriyey oon ku yidhi ilaahow intaasoo sanaan aayaddan akhrinaye ilaahu aayaddan igu badbaadi maanta salaaddii wuxuu yidhi markii aan dhammaysan rabo nin waran wata ayaa halkaa ka soo orday ninkii wadnaha u geliyey wadnuhu faraska u geliyey ninkii tuugaa meeshii ku dhintay markaasaan waxaan idhi yidhi war addoonka ilaahay oo xaggee iga timid xaalad adag ayaad ii soo gargaartay xaggee ka timid markaasuu wuxuu yidhi waxaan ahay oon ku imid shafaacadii qur'aanka kariimka ah waxaan ahay ergadii qur'aanka kariimka ah qur'aanka kariimka ah ood ilaahay ku barisay ood saaxiib la noqon jirtay ood akhriyi jirtay ayaa ilaahay igu kaa soo diray si aan kugu ergeeyo dibna ninkii uma aanan soo arkinayo meeluu ka baxayna waan waayey ninkii ii gargaaray waa malag ilaahay suurad bini aadam uga soo dhigay oo addoonkan ilaahay ugu nusraynayo oo addoonkan ilaahay ugu gargaarayo idan marka qur'aanka kariimka ah cajaa'ibtaasuu leeyahay ma aha keliya inuu noloshaada aakhiro uu gurmad u yahay oo noloshaada aakhiro uu kuu shafeecayo oo janno uu sababka ugu noqonayo ma ahan keliye haddii aad saaxiib joogto ah qur'aanka aad la yeelan jirtay adduunyadaadoo dhan uu saxaa sida aakhiradaadaba uu kaydku ugu noqonayo mashaakilku yacni kaa difaaci alqur'aanu waa jaalibun kamaa annahu daafic qur'aanku waa jaalibo wuxuu kuu soo jiidaa wax walba wanaaga kamaa annahu daafic sida qur'aanku uu daaficu yahay oo wax walboo xumaataa uu kaa difaacayo sidaas awgeed nabigeena salى اllahu waslama wabaaraka calayh xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen wuxuu ku sheegay adduunyadan laba qof un baa laga majeersadaa uu yihi nabigu salى اllahu waslama wabaaraka calayh laa xasada ilaa fi اtnatayn rajuli aataahu اllahu اlqur'aan fahuwa yaquumu bihi aanaaءa alleyli wa aanaaءa الnahaar laba qofaa adduunyada laga majeersadaaho la yidhaah yaa kaa dhiga iyagoo kale labadaa qof waxaa ugu horeeya qof qur'aankii la siiyey maalintiina aqriya habeenkiina aqriya waa nicmo la majeersado qofkaasoo kale oo saaxiibka la ah qur'aanka kariimka ah oo balwad looga dhigay qur'aankii kariimka ah wuxuu tilmaamay nebigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi inuu xaq u leeyahay inaad majeersato oo tiraa nicmadaasoo kale yaa i gaarsiiya tilmaantaasoo kale yaa ii yeela inaad tidhaaho inuu addoonkaasi uu xaq u leeyahay maalintiiyuu akhrinayaa qayb dhowr jus oo qur-aanka ka mid a habeenkiiyuu akhrinayaa dhowr jus oo qur-aanka ka mid a qur-aanku mahmaa akhrintiisa aada badiso waxaa ilaahay kuu furi doonaa macaantiisa waxaad arkaysaa marka hore markaad bilaabayso qur-aanka inaad saaxiib ka dhigatid waa culays waa adayg waa ku dhibahay naftu ma ogola intaa ay ku xabisan tahay qur-aanka akhrintiisii waxay dareemi inay jeel iyo xabsi ku jirto inay dhib ku jirto laakiin mujaahado la gal oo jihaad la gal naftii waxaad arki marka dambe adigoo ku raaxaysanaya qur-aanka oo macaan iyo raaxo ka helaya qur-aanka akhrintiisii laakiin maalmaha hore adigaa lagaa rabaa maalmaha hore jihaadaad ku jirtaa bilaha hore jihaadaad ku jirtaa bilaha hore mujaahadaad ku jirtaa lade iyo macaan ma helaysid marka dambe markaad dagaal badan samayso dadaal badan aad samayso ilaahay waa kuu furahaya subxaanahu wa tacaala nafaxaadka qur'aanka iyo barakaadka qur'aanka ayuu kuu firi waxaad noqonee qofkii uu sheegay imaamu shaatibi raximahu اllahu tacaala xayثu yaquul wakhayru jaliisin laa yumallu xadiiثuhu watardaaduhu yasdaadu fiihi tajamula imaamu shaatibi raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi wakhayru jaliisin laa yumallu xadiiثuhu qur-aanku wax lala fadhiisto midka ugu khayrka badan laa yumallu xadiiثuhu sheekadiisana lagama daalo qur-aanka qur-aanka maanta o dhan qisasuu ku siin wuxuu kaaga sheekaynaa nolosha adduunyo bilowgeedii iyo meeshay ku dhammaanayso adduunyo dadkii soo maray kuwii khasaaray sababaha ay u khasaareen kuwii liibaanay sababaha ay u liibaaneen marka wuxuu yidhi laa yumallu xadiiثuhu imaamu shaatibi qur-aanka sheekadiisa lagama daalo maalin walba waa cusub yahay maalin walba waa raaxo joogto ah maalin walba waa nafaxaad cusub
maalin walba waa barakaad cusub ayaa qur-aankii ilaahay uu kaa tusi uma malaynaysid shalay inaad kala furtay uma malaynaysid saaka inaad akhrisay laakiin goorma tilmaantaasi ay iman kartaa bacda almujaahada wa bacda almashaqati طawiila markaad nafta aad dadaal la gasho jeermiska qalbiguna uu dhammaado oo qalbigu uu noqdo shaasha saafiya shaashad miraayad saafiya qalbigu markuu noqdo qur-aankii waxaad arki adigoo u malaynaya inaadan saakay akhrin inaadan xalay akhrin oo kuu noqonaya balwaddaadii balwad iyo macaan raaxo ka dareemaya ayaad arki sidaas awgeed walaalayaal qof walbaahi ha ku dadaalo qur-aanka kariimka ah inuu xiriir toosa uu la yeesho inuu ku camal falo inuu noqdo ahlullaahi wa khaasatuh dadka ilaahay ahalkiisa ee khawaasta ilaahay xugum ahaanna qur-aanka kariimka ah wax lagu cibaadaysto oo ilaahayba lagu xuso waxa ugu khayrka badan wuxuu ka khayr badan yahay inaad xataa towxiidka aad ku wardiso iska dhaaf subxaan allah iyo iska dhaaf towxiidka laa ilaaha ila اllah laa ilaaha ila اllah wax khayr badan oon la gaari karin towxiidka khayraadkiisa laakiin waxaa ka sii weyn ka sii ajir badan kitaabka ilahay ood akhrisato waa ka sii weyni badan cibaadaadku way kala ajir badan yihiin iyagoo dhammaan wada fiican oo dhammaantood ilaahay maqaam looga gaaro haddana cibaado ilaahay maqaam agtiisa looga gaaro waxaa ugu weyn qur-aanka kariimka ah tilaawaة الqur'an wa أjalu wa afضalu min الtasbiix والtahliil والtakbiir والtaxmiid qur-aanka ilaahay ood akhrisato wuxuu ka fadli badan yahay towxiidka inaad akhrisato wuxuu ka fadli badan yahay inaad tasbiixsato wuxuu ka fadli badan yahay taxmiidda iyo xamdiga inaad badiso wuxuu ka fadli badan yahay takbiirta allahu akbar inaad ku wardiso wax walba oo wardiya qur-aanka ilaahay ugu fadli badan wax la dhinac dhigi karo oo lala simi karo kalaamka ilaahay hadalka ilaahay cibaado la dhinac dhigi karaahi ma jirto sidaa awgeed nabiga salى اllahu waslama wbaaraka calayh wuxuu yidhi xadiiskii imaam muslim uu saxiixiisa ku wariyey man qara'a xarfa min kitaab اllah falahu xasana wاlxasanaةu bcashri amhaaliha laa aqulu alif laam mim xarfun bal alifun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarfun nabiga salى اllahu waslama wbaaraka calayh xadiiska imaam muslim saxiixiisa ku wariyey wuxuu ku yidhi qofkii hal xaraf ka akhrista kitaabka ilaahay wuxuu leeyahay xasano halkaa xasanana 10 ajira lagu siin halkii xarafba 10a lagugu dhufan ma dhahayuu yidhi nabigu salى اllahu عalayh wasalam alif laam miim oo dhan ayaa hal xarafa ma dhahayo bal alifun xarfun alifkaas waa hal xaraf 10 ajira lagugu dhufan wa laamun xarfun laamtina waa xaraf 10 kale wa miimun xarfun miimkuna waa xaraf saddexaad waa 10 kale alif laam miim 30 ajaraad haysataa 30 bismi illaahi الraxmaan الraxiim markaad tiraa bismi markaad tiraahid 30 aad mari 30 ajir waa imise xuruuf 2 juz haddaad akhriso 30 juz haddaad akhriso isaga dhan haddaad khatinto ood dhammayso waa imise balaayiin ajir ah ayaa akoonkaagii ku dhacay maanta innagu waxaan ku faraxnaa haddii qofka la yidhaaho akoonkaagii waxaa kugu soo dhacay $10,000 ya maantaasoo dhan waa kala badbadanhayaa qofka bismi اllah $10,000 ah uu leeyahay wuxuu isu arkaa noloshiisii dhammayd inuu nolol kale galay soo maaha nolol kale inuu galay isu malaya ka warran akoonkaagii hadday kugu dhacayaan 10,000 oo ajir hadday kugu dhacaan oo maalin walba aad akhriso 3 juz 4 juz oo qur-aanka ah ma u aragtaa noloshaada inay wax iska beddelaan ma u aragtaa maantay wax weyn inaad heshay jawaabtu hadday tahay maya waxba uma arko hadday tahay waxaad ogaataa inaad tahay addoon khasaaro ku jiro jawaabtu hadday tahay haa waan faraxsanahay maalintii 4 juz oo qur-aanka 3 juz oo qur-aan aan soo aqriyo waxaan u arkay noloshaydii isbeddel weyn inuu ku yimi waxaan ilaahay uga mahad celin in badan ilaahay i waafajiyey mahmaa qur-aanka ilaahay ku waafajiyo ilaahay uga mahad celin alxamdu lilaahi aladii wafaqanii litilaawati kitaabihi ilaahu adaa ku mahadsan nicmada i gaarsiiyey laakiin markii 10,000 akoonka lagu soo shubo haddii adiga dhan aad kala badbadanayso oo aad leedahay nolol kale anba galayba nolol kaleo cusub ayaan galay xayaatadaydii wixii hore ka kacwo haddaan noolahay nolol cusub hadday bilaabatay
haddaad u arkaysid maalintii hal jus aad akhriso laba jus aadaan akhrisana waa iska caadi aad leedahay nolosha wax weyn aadan u arkaynin wax weyn aadan u arkaynin waxaad ogaataa in markaa halis aad ku jirto waa in marka mar walbaba waxa akoonkaaga aakhiro kuugu dhacaya waa inay kula weynaadaan haddii iimaankaaga iyo qalbigaagu ay wanaagsan yihiin iimaankaaga iyo qalbigaagu haddii ay wanaagsan yihiin sidaas awgeeda nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayh uu leeyahay halkii xarafba tobanaa lagugu dhufan dadka ahlullaahiga ah min saxaabati rasuuli اllaahi salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wataabiciin wasalafi الsaalixi waman bacdahum waxaa ka mid ahaa dad hawl ka dhigtay qur-aanka ilahay inay akhriyaan risqigooduna meeshooda uu ugu iman jiray irsaaqadooduna meeshooda ay ugu iman jirtay ilaa shaqada sideedaba shaqadu anwaacu hal albaab un baan annagu ka naqan in la shaqaysto soo maaha waa albaabka in la ordo oo dukaan la furto oo maqaaxi la furto oo dukaan la furto oo saasaanu ka naqaanaa nolosha waa sax hadday xalaal ku tahay waa sax waa nolol fiican oo ilaahay irsaaqadda lagu dalbo oo aada u wanaagsan laakiin haddana ogaaw albaabo badanaa jira oo irsaaqadda lagu raadiyo oo midka dukaanka ee baqaarka aan ahayn maxaa ka mid ah alxirsu calaa taqwa allah alla ka cabsiga haddii aad ku dadaashid xaaraamta aad iska ilaalisid xalaashana aad ku dadaashid qur-aanka ilaahay akhrintiisa aad badisid waxaad ogaanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala inaadan ka liidanaynin inaad ka wanaagsanaato ood ka qalbi wanaagsanaato mooye qofka shaqaysanayo dhididkiisa maalaya adiguna waxaad ku dhididay kitaabka ilaahay waman yatawakala calى اllahi fahuwa xasbuh waman yataqi اllaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib ilahay wuxuu yihi qofka ilaahay ka baqa meeluusan ka filaynin ayaa ilaahay ka irsaaqa subxaanahu wa tacaala sidaas awgeed irsaaqadaadana waxbuu ka bedeli qur-aanka ilahay od akhrinaysa cabdullaahi bnu camr bn alcaas saxaabigii la dhihi jiray xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen wuxuu ballan ku qaaday fii kulli yowmin inuu qur-aanka dhammeeyo maalin walbuu qur-aanka dhammayn jiray saxaabiga cabdullahi bnu camr bn caas waa soo bilaabi waa dhammayn berri waa soo bilaabi waa dhammayn saasuu ku geeriyooday cabdullahi bnu camr bn caas waa dadka fahmay qur-aanku wuxuu yahay dadku qur-aanku wuxuu yahay dadka fahmayu ibnu kahiir raximah اllahu tacaala markuu fasirayey suuraة الnaas qul acuudu birabbi الnaasi meliki الnaas suuraddaa markuu fasirayey qiso wuxuu sheegay sulaym bnu citrin sheekhi la dhihi jiray kaana yakhtimu fii kuli leylaةi ثalaaثa khatamaat habeen kasta sulaym bnu citrin wuxuu yihi ibnu kahiir wuxuu khatimi jiray 3 goor uu qur-aanka dhammayn jiray fii kuli leyla addoommada ilaahay fiiri siday saaxiib ula noqdeen qur-aanka ilaahay addoommada ilaahay siday qur-aanka ilaahay saaxiib ay ula noqdeen fiir fii kuli leyla sulaym bnu citrin ayaa la dhihi jiray sulaym bnu citrin fii kuli leyla yakhtim habeen walba 3 goor uu dhammayn hal mar ma aha 2 mar ma ah waxaa ka mid ahaa jiilu lqur'aan dadka qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala u furay akhrintiisii waxaa ka mid ahaa imaamu shaafici raximah اllahu tacaala kaana yakhtim fii kuli yowm imaamu shaafici kutubta ka taariikhaysoo dhan waxay isku raaceen maalin walba inuu qur-aanka dhammayn jiray ramadaanka markii la gaarana isbeddel uu sheekhu samayn jiro maalin walba 2 goor uu dhammayn jiray markii ramadaanka la gaaro fii kulli yowmin 2 khatm uu akhrin jiray imaamu shaafici bilaha kale oo caadigaana maalin walba 1 mar ayuu qur-aanka dhammayn jiray noloshiisii kalena waa qabsan jiray sheekha adduunyadiisii aakhiradiisii kutubta uu akhrinayo waxa uu qorayo waktigaa ilaahay u barakeeyaa qofka qur-aanka hadduu saaxiib la noqdo qofka qur-aanka hadduu saaxiib la noqdo waktigaa ilaahay u barakayn asagoo raatibkiisii iyo qur-aankiisii akhristay ayaa noloshiisa adduunyana ilaahay u hagaajina subxaanahu wa tacaala sidaas awgeed marka waxaa la doonaya dadka ahlullaahiga ah in lagu daydo oo raadkooda la raaco waxaa wax badan la xaqiijiyey qofka qur-aanka si joogtaa u akhriya xataa ciiddu way ka xishootaa ciiddu ma cunto markuu qabriga galo way ka xishootaa ciiddu ma cunayso in badan waxaa la xaqiijiyey dad mucallimiin ahaa oo qur-aanka aada u akhriyi jiray ayaa 17 sano ka bacdi la soo faagay markaasaa waxaa la arkay iyagoo shalay la aasay oo kale shalay
iyagoo la aasayo xataa karfantoodii aboorkii iyo bahalladu aysan cuninin waa ahlullaahi wa khaasatuh waa ahalkii ilaahay waa khawaastii ilaahay dadka ahlu qur-aanka ah carradiyaa ka xishoonaysa inay cunto marka sidaas awgeed noloshiisa qof walba isbeddel ha ku sameeyo aan ku dadaalno sida mar walbaba qur-aanka aan u joogtayn lahayn akhriskiisa hada wabillahi towfiiq asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بارك الله جزاكم الله خير الحمد لله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين